wararka ka imaanaya deegaanka halgan oo hoos taga degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan ayaa saaka waxa ay soo sheegayaan in halkaasi ay ku dagaalameen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda la magac baxday Macuusleyda ee ka dagaalantay deegaanada maamulka Hirshabeelle laakiin dagaalkan waxa uu si qaas ah kaga dhacay deegaanka halgan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan maleeshiyaadka Macuusleyda ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab oo fariisiin ku lahaa deegaanka halgan halkaasi oo dhowr jeer hore ay ku weerareen al-shabaab kooxdan Macuusleyda dagaalka intuu socdo waxa la sheegay inuu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo dhanka al-shabaab soo gaaray inkastoo Macuusleyda oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen in aysan wax qasaare ka soo gaarin dagaalkaasi mid ka mid ah Macuusleyda ayaa sheegay in dagaalkii ka dhacay deegaanka halgan ee hoostaga degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan ay ku dileen sargaal ajnabi ah kana soo jeeda Kenya oo deegaanka halgan looga yaqaan Maxamed samarkana ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo hadalka u dhigay deegaanka halgan wuxuu u jira dhanka bariga wuxuu u waadan yahay 4 kilomitir ma garatay Macuusleyda al-shabaab ayaa isku dhacay markii isku dhacayna waxa dhacday ilaahay amarkiisa kooxda Macuusleyda ayaa weerar ka qaaday marka nin oo xitaa waliba nin cadaan xitaa waa ku dhaawacmay ma garatay oo saraakiisha oo al-shabaab ugu weyn gobolka Hiiraan laga yaqaan mafaato nin Kenyatina ah inuu Kenyaati yahay waxa lagu dadka deegaanka waa is wada yaqaaniin marka ninkaas Sawaaxiliga ku hadli jiray ma garatay oo dadka Sawaaxiliga oo reer halgan ayaa yaqaan ma garatay afka Sawaaxiliga ku hadli jiray marka ninkaasna magaciisana dadka deegaanka waxay ku sheegi jireen laakiin kasoo magac u bedelan jiray Maxamed ma garatay waxa qaaday ciidamada Macuusleyda qaaday meesha waxa ayaga ku xoolo qalanaya oo calashaan nin amiira yimid oo ninkaas wada yimid oo dhanka qoraxsaneed ee ka soo gudbay ayaa yimid aan ku dhahay deegaanka halgan oo dhanka waqooyi ma garatay meeshii ayaan dhaxdaas lagu xoolaha loo qaada jiray Macuusleyda ma garatay waxay isku aruursanayeen in ay Macuusleyda weerar ay ku qaadaan laakiin hadda xarakada ayaga weerar lagu soo kidiyay ma garatay marka walaalow meesha xiisada ka jirta deegaanka halgan ee al-shabaab iyo kooxda Macuusleyda ay ku dagaalameen waxa haatan gacanta ku haya dagaalamayaasha al-shabaab oo hore fariisiin halkaasi ugu lahaayeen laakiin saraakiisha kooxda Macuusleyda waxa ay sheegayaan in saaka qorshuhu yahay in halkaasi ay gaaraan oo suuragal ay tahay inay dagaalamaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka howlgalka Amisom iyo ciidamada maamulka Hirshabeelle